maalintii ciid al-adxada ayaa waxaan ku guda jiraa arrimihii salaamaha ay dadku isku dirayeen imikana halkan waxaa dad weynihiisa ku kala dhaqan gobolada kala duwan salaamaya ugaaska beelaha Samaroon ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi wuxuu ku bilaabay salaantiisa iyo dadka mahadnaqa u dirayo bismillaahir rahmaanir rahiim الله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحن دمان أمة المسلمين تمرك سوى الجوجان عيد بركيسان إلهي ما أنت خير كذا الله ينسيه إلهي كن نقضى كوي كعيدة عيد وناكسن أنتم بالخير كل سنة أنتم بالخير إلهي سنة كسنة كيس بربش برواقع الله إنه قارسيه إلهي وحن كبريا إن أمة الصومالية ملك سوى الجوجتو إن إلهي عافمات إيو خير وسيو نبتقلية إلهي الناس وضسيو إلهي تقالدان إنه تلقاضو إن إلهي أبارهنا إنه تلقاضو وإلهي إنه دبيريو ومستقبل في عن إلهي إنه وضسيو يعني إلهي إنه برجينيا عيد وناقسن كل عام أنتم بالخير السلام عليكم ورحمة الله xildhibaan garaad oo isna kamid ah xildhibaanada guurtida ee Soomaaliland ayaa halkan taaniyadaha salaada ciida isna bismillaahir rahmaanir rahiim ciid mubaarak waxaan ummadda Soomaaliyeed meel joogta waxaan ku taaniyay ciid wanaagsan ciidul adha waxa farxad noo ah oo ciidi kale nagu duwan tahay waxa noo yimid ugaaskaygii oo naga maqnaa muddo dheer waas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi yaa ciidan nala jooga waa ciid taariikh noo ah aan xusi doono waa ciid ummadda Samaroon si gaar ah ay u tixgelin doonto oo u xubsan waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ciid wanaagsan ma leenahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa uga baryaynaa horumar barwaaqo bashbash nabad geliyo gidigood inay ku waarta waxa kale ku soo dhaweynaa ciidan ugaaska oo taariikhdu ay sheegayso markii uu horeysay dalka Soomaaliland u yimaado oo nala ciido oo ilaahay mahadi ilaahay nagu simay alxamdulillaah rabbil caalamiin isagana waxa leenahay ugaaska waxaan rajaynaynaa caafimaad qab horumar iyo guul baan rajaynaynaa insha Allah waxa kale oo isna habaliyo iyo wanaag aan u dirayaa Suldaan Abi Bakar عمي الوبر يعني سنة حنبليه ودريا طلابة الثانية وكقاضي أنتي وقاسك جوي حلك وين بسكا صاري إلى هاي سنة كجايسيو عيد ونايسن كتيجي سنة نوحل هاي عيد ونايسن رانتي جيسيان يوم جيسنا رنتي أنتي وقاسك جوي وحموجي عليك وحسنا مدن أنا مسعرب ورهانتي بدومي قد قابضها أو قاسك صفي عن intuu joogay u dadaalay una shaqeeyay runtii iyo odayaashiga guddiga qabanqaabada guddigoodba aad iyo aad baan u mahadnaqay runtii si xilka weyn ay saareen oo runtii ku guuleysteen waxaan hambayo weyn u dirayaa dadka reer Seylac iyo reer Wahaya oo ugaaska si fiican u soo dhaweeyay intuu mariyay jiidaas ciid wanaagsan ma yahay Allah wassalaamu alaykum wa barakaatuh inkastoo aan mar hore idaacad hore idinka soo salaamay haddana tan insha Allah waan idinku soo celinaya waxaan leenahay Allah idin barakeeyo waan idin salaamaynaa kullu caam anta bixayr baan leenahay dhamaantiin meel kastoo joogtaanba jaaliyada reer Awdal iyo Salal iyo dhamaanteen jaaliyadaheenu meesha ay degan yihiin iyo Soomaalilandba dhamaan Soomaalida iyo muslimkaba aad baan u salaamaynaa waxaan leenahay insha Allah sanad wanaagsan sanadkan Allah inooga dhigo Allah inoogu barwaaqeeyaan leenahay waxaan halkan la joogay fursad u helay guddi sare iyo cuqaal gurigii ugaaska iyo ugaaskii baan wada joognaa fursada fiican baan helay ugaaskana salaan iyo waxaan isagana u dirayaa oo inkastoo ila joogo salaan fiican assalaamu calaykum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam maanta waa ciid beesha Samaroon dhamaanteed meesha ay joogtana laba ciidood bay u tahay waayo ka awdal ahaan maanta waxaan dhex jooga ugaaskayagii bana dhex jooga alxamdulillaah rabbil caalamiin hambaliyaan leeyahay dhammaanba meesha ay joogaan islaamku ciid wanaagsan baan leeyahay ilaahay barakiya khayr iyo barwaaqo Allah inasiyo waxaan sheegayaa maanta waxaan ku ciidaynaa ciidi carafo midnimo wada jir walaalnimo ayaan ku ciidaynaa
إلهي وحن كرجينيا إنه سيدا نو سياديو وسنة كدامنا فش برواقة استعنكم قعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بحصل من شردانة وحن حق السلام يا إسلام كدمانتي ما هاي كل عام وأنتم بخير إسلامكم ميل كستور جوجو سيبا كل كلا قدر دقة صومالي ذو بيل كستور يكون نوشاي عيد وناكسن إلهينا هاي البركة إيو أبارها إيو مسيبوين كالله هاي نقدر قاضو بإذن الله كريم عيد ديدنا الله هاي نقارس إيو بش يبرواقو سلام كل إيا الله وحنو ديريا وقاس كيغا قود وقاس عبد الرشيد وقاس روبل وقاس دودي ونلينا هاي مالين فتحي فرن إيو إلهي نو كيني وحنانكو سلام يا ابنتي قوبا صومر هل سوين لنوغا سول دويي لغب بلابو بورما بحديدي إلى إيو سيلا لغهايا انت أرد حيث أردن سلام كل إيا اللابا إيو محمد باردين جادين إينا دادك قود كلاو حلينا barakooba dadka baqan kuway noo dhow iyo kuwa naga dheer islaam guud ahaan iyo gaar ahaantiiba waan salaamnay salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh bismillahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam inta halka joogto horta marka horeysa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ugu horeeyo ugaas cabdirashiid ugaas rooble ugaas toodi ciid wanaagsan baan leenahay ciid wanaagsan ciid alcaafiya maca faa'iziin insha Allah ta'ala waxaan salaamaynaa ummadaha muslimka ah ee diinta wadaagno ayaan marka horeysa salaamaynaa marka xiga magaalada Boorama iyo intii la halmaasha marka xiga Somaliland marka xiga Djibouti marka xiga Ethiopia iyo inta ku nool oo dhammaan salaamaynaa insha Allah waxaan leenahay wixii aan jaarnahay oo dhan magaceena ku hadlana waan salaamaynaa waan u ducaynaynaa ilaahay waxaan leenahay wixii xunba Allah ka salaamad yeelan leenahay gaar ahaan dadkii aan soo marnay ugaasku nala socday markii ay adeerada ka bilownay Boorama socodkeeda quljeed boon adeerada weerar adeerada fadhixun adeerada fardaxirka adeerada gaarisa gaalkeel gaal aashacadu saylac lughaya إن الله يتيا صومرنا دكتي جوجي وسلامنا عاد يا دو ما زي ما لنا سيدا ينوسو دويين وعلنا هاي هدي حيد الشري زمال ميورة هدكتو عيد إيو هدي على ردتك هايس عفيانو هايس سامعان بالنا كشكي هايس كدجيان ودقني الحمد لله ودجر في عن وضنولاشو نبضي عارضتكم علوشو ده قليان وحي هدينا عقدتنا الله كدويان وحي حنون صري الله كدويو قاران بينا غير كذا الله دويو وانا لا حساب تبي الدورة مركز هدي على الرضا أي نوسها معنا إن شاء الله تعالى. أنا قولي وجاسكا عيدان جونا نتعي عيدي عرفوا وحنو سلامنا أنا مهبلينا ومضى نور قبل كان سيل معها لغاية إيو سلاليو يا أوضل أنت كلام سلامنا وحويا سومالي أردن سومالي أردن مسلم أردن وحنو لنا هاي كل عام أنتم في خير وبالضدي يدك مقنعي وحافظة من سلامنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عليه وصحبه وسلم. marka horeysa ilaahay baa mahadle ilaahay noo keenay ugaas urada oo korkoori jiray noo soo baxay oo fadhi ah kaasoo ilaahay idinkiisa quraanka xiftigiisa aan ilaahay u diray oo ilaahay nagu mahadnayno oo la ciidayno oo la ciidaya intay ku farxsan oo dhan waan u direynaa salaan aad u qaali ah hayraado ha weynaado dadku Ethiopia ha joogo Somaliland ha joogo Soomaaliya ha joogo Mareykan ha joogo ahbaabtiisii inta ku farxday oo dhan Allah ka farxiyo عيد فديه تبي الله داف أفرتح نوصلنا السلام عليكم عيد مبارك لكم حق السلام يا والله نحن بعبد الحسين يوم ما أنتم تقيهم ولا لا من رب الشباب عيد مبارك وانا كل عام وأنتم بالخير إلهي خير كان وافجيه ما أنتم كانوا حقوا عيد مبارك عيد نسوق في عيد الله السلام عليكم ورحمة الله إبراهيم محمد إبراهيم علم عنه واحد سلام يا الصلاة أو صداق الورية سلطان أبو بكر iyo salaadinta kale dhamaantood wixii sultaan oo dhaqay iyo ugaaska ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Toodi iyo waxa salaamay ummadda Nabi Maxamed meel kasta oo joogaanba Soomaaliland joogay Itoobiya joogaa kulligooda salaamaya
waxaan kaloo salaamayaa dadkii sida fiican u soo dhaweeyay ee ka bilaabanta quljeed ilaa Maboon ilaa iyo Siilac ilaa Luqaya waxaan kaloo salaamayaa ummadana maxamed dhamaanteen meel kasta joogay waxaan magacayga ah la Bashiir Cumar Camir waxaan salaamayaa dhammaan eheladayda oo kala joogta Djibouti dibadaha iyo Boorama aad iyo aad baan u salaamayaa fadliga ciida ugaaska beelaha Geedosi ugaaska Abdirashiid aad baan u salaamayaa dhammaan wixii muslimiinta nool waa salaamayaa nabadgelyo maxamed waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed ummadda Somaliland ummadda Djibouti iyo ummadda ku nool Ethiopia waxaan leeyahay ku ciid wanaagsan ilaahay maalinta barakaysan Allah inaga wada aqbalo maalinta weyn ee ciid al-adha ilaahay khayr ummadda muslimka ilaahay wada siiyo ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay ilaahay naga dulqaada abaaraha iyo dhibaatada ilaahayna dagaalada Allah inaga nabadgeliyo ummad walaala oo muslima ayaynu wada nahay isku luqada isku diina marka insha Allah waxaan leeyahay rajaynayaa dhammaanba reer awdal iyo dhammaan ummadda muslimka oo Somaliland in ilaahay caafimaad in siiyo marka ilaahay mahadi maalin weyn oo ciida weeyaan ilaahay nagu barakeeyo fadliga ciidana ilaahay na siiyo ummaduna in la iswada saamaxo ayaa ilaahay ka baryanaa insha Allah khayr baan rajaynayaa iyo caafimaad iyo midnimo insha Allah ummadda islaamka oo dhan meel kasta ay joogaan ciida al-adha fadligeedan ku salaamayaa eheladayda anoo ah Axmed Maxamed Cabdi loo yaqaan aad waxaan salaamayaa ugaas Abdirashiid ugaas Rooble aad baan u salaamayaa ugaaska beelaha Samroon dhamaantood aad baan u salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan magacaygu Cabdiraxmaan Xuseen Maydane waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimka oo ugu horeeya ugaaskeena guud beelaha Djibouti ugaas Abdirashiid ugaas Rooble ugaas Toodi war maanta ay mala ciiday waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ku nooshahay waalidada asxaabta cid walba jirto hadda iga duubaya marka insha Allah waxaan rajaynaynaa ciidda inuu ilaahay khayr iyo barwaaqo naga Yusuf Al-Ghali Badani ya waxaan aad iyo aad ugu farxaynaa ugu wanaagsanahay waaska ilaahay noo keenay ee naga maqnaa qarnigeygii baa soo noqday barakadeedii baa soo noqotay magaceygii baa soo noqday ilaahay noo adkeeyo ilaahay noo sii siyaadiyo ilaahay muwaafaqadii maxbadana hana siiyo ilaahay gabiga waxaan suuran bay ilaahay heshiis Allah ka dhigo روي شعر كبا الله نو وناجو تدي ديب الله نو وناجو isagana madax khayr qaba Allah nooga dhigo madax barakaysan Allah nooga dhigo kii dhulka tole ee dadka isku tole Allah ka dhigo aqbalkii ijaabada baa Allah hana siiyo kaloon salay ummadda islaamka meel kasta joogto ciida waan salaamaya khaasan reer Boorama dadkii nagala hawlgalay ugaaska waan waliba xagaag u sii salaamaya intii kalena waa walaalahay waa salaamaya Allahna soo hadeeyo midnimadana Allah noo adkeeyo waxa kaloo salaamaya carruurtaydii kala joogtay Canada dibadda iyo kuwa Hargeysa joogan dhammaan waa salaamaya iyo waxaan saaxiib la ahaa oo dhanba dhammaan waa ciid wanaagsan ciid barakaysan ciid al-aafiya jirdana waa salaamaya ninka salaanta iga qaadaya waa nin mutadarrif oo aad u shaqeeya ilaahay isagana ilaahay guul ha siiyo ilaahay guushiisna hala gaarsiiyo waxbay wanaag gabalaan noo siyaade السلام عليكم magacaygu waa Cabdiqani Maxamed Aadan waxaan deganahay gobolka Awdal magaalada Boorama maanta ay bishu tahay 6 oo ay ciid al-Arfa ku jirto waxaan leenahay ciid wanaagsan ma leenahay dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogan waxaan halkan ka salaamayaa walaalkay Cabdiqaadir oo jooga wadanka Mareykanka iyo hooyada iyo dila joogta waxaan leenahay way kulli caailad ila al-khayr waa Maxamed Xuseen Maxamed waxaan joogaa Boorama magaalada gobolka Awdal waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta oo leeyahay ciideeda ilaahay khayr ha nagu gaarsiiyo waxaan kaloo salaamayaa cid kasta oo magacayga taqaana iyo muuqayga barakaad dhammaan waxaan salaamaynaa ummadda muslimiinta gaar ahaan Soomaalida khaas ahaan eheladooda iyo cailadooda meel kasta jooga waa salaamayaa kulli ciid waantum bixayr baan leeyahay dhammaantiin naanaystadana xabaardiid baan idhaa maanta waxaa noo ah ciid al-adha farxad weyn baan ku jiraa muslimiinta meeshii doonaaba ha joogaan ciid wanaagsan baan leenahay Soomaalidana meeshii doonaha joogaan ciid wanaagsan baan leeyahay
gobolka awdal inta u dhalatay aba Soomaaliland u dhalatayna ciid wanaagsan baa leeyahay Faarax Aar Liiban waxaan halkan ka hambalyeynaya hooyaday Aamin Cali Cadan iyo aabahay Maxamed Faarax dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa dadweynaha reer Soomaaliland meel kasta ay ku nool yihiin gaar ahaan awdal halkan waxaan maanta hambalyo weyn uga dirayaa waxaan dhahay habaday Nuur Cabdi Muruud oo ila degan magaalada Boorama oo bariya dhawad ka timid qurbaha waxaan ka sii salaamayaa inaan fanaan cusub ah oo run ahaantii aad igu qaalisan oo naabtiga rumaada Cabdixakiin cilmi Cabdilaahi maxaan dhahay waxaan ka salaamayaa dhammaan family-gayga meel kasta ay joogaan maxaan dhahay iyo gaar ahaan ardayda aan isku wada galaaskanahay ee dhigata dugsiga sare ee Al-Aqsa Secondary School gaar ahaan Form 2A halkan waxaan ka hambalyeynaya hooyaday Aamin Cali Cadan iyo aabahay Maxamed Faarax waxaan halkan salaan diiran uga dirayaa dadweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan magaalada Awdal run ahaantii halkan waxaan hambalyo weyn uga dirayaa abayaashay oo ku dhaqan waxaan dhahay qurbaha iyo inta halkan dadka la joogta run ahaantii xaggana waxaan ka salaamayaa maanta ciidda ee aad loo wada faraxsan yahay maxaan dhahdaa dugsiga aan dhigto Al-Aqsa Secondary School iyo macallimiinta sharafta leh halkan waxaan maanta ka salaamay dadweynaha family-ga gabi ahaantii iyo run ahaantii wixii aan magacayga iyo magacaygu Axmed Yuusuf Madar waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka meel kasta ay joogaan gaar ahaan dadka u dhashay gobolada Awliya iyo Salal meel kasta ay joogaan iyo intii magacayga iyo muuqayga garanaysa meel kasta ay joogaan assalaamu calaykum salaamina dhammaan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan Awdal iyo Salal waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan hambalyeeda ciid u dirayaa dhammaanba bulshooyinta islaamka meel kastoo ay joogaanba waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr waxaan si gaara u salaamayaa waalidada oo kala socsoc lahayn qaraabada dhammaan waxaan si gooniya u salaamayaa xaaskayga iyo ilmahayga asalaamu calaykum bismillahi raxmaani raxiim aniga waa xuseen salaaman xasan waxaan halka ka salaamaya ummadda islaamka meel kastay joogaan gaar ahaan dadka reer Awdal iyo Salal anigoo salaanteeda weyn aan u dirayo ugaaska beelaha Gadabuursi ugaas Cabdirashiid ugaas Roble ugaas Duudi gaar ahaan waxaan u salaamayaa walaalahay oo kala jooga dunida daafeega iyo waddanka gudihiisa dhammaanba aad baan u salaamayaa ciid wanaagsan baa bismillahi raxmaani raxiim ciid mubaarak baan dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan waxaan gaar ahaan u salaamayaa ummadda reer Awdal iyo ummadda reer Salal iyo dhammaan Soomaalida oo dhan ciid mubaarak baan kullu caam wa antum bikhayr dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ku nooshahay waxaan kaloo salaan u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda الرحمن الرحيم waxaan halka salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogto gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland marka xiga waxaan salaamayaa xaaskayga iyo carruurtayda oo jooga Sweden iyo Ireland kala jooga ayaan salaamayaa marka xiga waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ayaan salaamayaa السلام عليكم